صاحب هذا بيجك كعصب تحي ندي رجع وده سبسكرايب لايك يا شير. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهي سبحانه وتعالى أيام هاد بدن إسكاله وتحنيه إنه كسب سناسيده لو بيرا علف كعجارن عرلا أنت لبيرو ولو يغانو هيدربونيك فودر وقيبتي أفراد ما أنت إن شاء الله تعالى وحن برندو ناسيده لو أبورا علف كان طلابو مركا علف كاني وعلف أنو باهنين دول بلارن يا عرام مدنا وحال صو صار كرا حل كستا جو يجيلال حوله ويجعل سنيان سهلنا ويدفشيدي كران وحنا ليهي تيسره محصولكن waxaad heli kartaa 365 maalmood ee sanadka oo dhan xoolo dhaqatada doonaysa inay soo saaraan calafkan waa inay raacaan talaabooyinka soo socda talaabooyinka beeridda calafka cagaaran ee carlaanta la beero qodobka koowaad waa doorashada iniinyaha ama miraha la beeriyo macnaha doorashada miraha la beeriyo waxaan ula jeednaa nooca ay yihiin ma galey baan beeraynaa ma misagaan beeraynaa ma waan baan beeraynaa ma shaciir baan beeraynaa marka qodobka koowaad waxa weeyaan dalaga aad abuuraysid marka aad dooranaysid waa inaad maanka ku haysaa arrimaha soo socda ko dalagan aan abuurayo ma heli karaa mar walba labo tayadiisu intee la eg tahay qodobka saddexaad oo maanka inaad ku haysaa ay tahay qiimaha aad ku heli kartaa waa sidee maqaaliba mise waa raqiis intii aan wadin marka tijaabooyinka waxaan tijaabinay dalagyo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen lawska digirta salbukada qamadiga galeyda masagada iyo waanbaha galeyda masagada iyo waanbaha ayaa ugu fiicnaa waxaana ugu tayo badan waanbaha masagada iyo galeyda ayaa ku xiga qodobka labaad dooro miraha aad abuuraysid qodobkii hore waxaan go'aan ka gaarnay nooca miraha aan abuurayno oo mesela galey baan dooranay marka abuurka aad abuuraysid ama galeyda aad abuuraysid waa inaad doorataa weeyaan marka galeyda aad dooranaysid waxaa waajib kuga ah koow waa inay noqoto miro cusub kana gudbay marxaladda dhalasho la'aanta labo waa inay noqdaan miro nadiif saddex waa in aanu cayayaan ku jirin afar waa inay qalalan yihiin waa inaad tijaabisaa boqoleyda soo dhalashada macnaha iniyaha markii la abuuro boqolkiiba meeqa ayaa soo dhalanaysa waa in boqoleyda dhalashadu ka sareysaa boqolkiiba 99 waa inaad ka saarto miraha jajaban carrada iyo dhammaan wixii wasakh ama qashin ah qodobka saddexaad miisaamida marka aad nadiifiso kadib waxaad cabiraysaa ama miisaamaysaa inta ku filan weelka aad wax ku abuuraysid xusuusnow saxanka cabirkiisu halkii mitir ee laba jibaaran waxaa lagu abuuri karaa 2.5 ilaa 4 kiilo 2.5 ilaa 4 kiilo lagu abuuri karaya marka weelkaagu inta uu qaado oo kiilooyin aad u cabiraysaa haddaadan miisaan isticmaalayna imisa koombo ayaa ku filan ayaad cabiraysaa haddii uu weelka cabirkiisu yahay nus mitir laba jibaaran intii aan soo sheegnay nuskeeda ayaad abuuraysaa 2.5 ilaa 4 baan niri kala bar ayaad abuuraysaa qodobka xiga dhaqida iniinyaha ama miraha aad beeraysid waa in si fiican loo dhaqa waa in jeermiska iyo fangiga laga nadiifiya waa in iniinyaha biyo si fiican loogu dhaqo waa in biyaha lagu daraa sodium hypochlorite ama jeermis dile kale halkii liter ee biyo ah waxaa lagu daraa 10 ml oo ah sodium hypochlorite muddo nus daqiiqo ah haddii waqti dheer lala dhigana kaba fiican haddii aad weydo jeermis dile waxaan biyaha ku daraynaa cusbo oo waxaan ka dhigaynaa mid riban macnaha cusbo si fiican ugu dar biyaha cusbada leh oo cusbada si fiican aad ugu dartay si fiican ugu dar ayaga ayaa waxay gelayaan booskii jeermis dilaha kadibna si fiican uga dhaq jeermis dilihii aad isticmaashay ama biyihii milixda lahaa qodobka xiga waa radinta ama biyo la dhigidda marka aad si fiican u dhaqdo kadib biyo la dhig muddo 6 saac waxay jilcinayaan iniinyaha waxaana sahal noqonaya dhalashada biyo la dhigidda macnaheedu waa maxay baaldi ayaa soo qaadanaysaa ama baaldigii aad ku dhaqday iniinyaha 3 meelood oo mesela ama kala bar wax ku dhow ayaa waxaa ku jira mirihii biyihii baad ka dhammaysay mirihii soo haray ayaad biyo markaad biyihii si fiican u dhaqdo biyihii daawada lahaa aad ka dhammaysood ka nadiifisay ayaad biyo nadiifa ku shubaysaa ilaa 3 meelood oo meel ayaad biyaha ka kormarinaysaa iniinyaha macnaha iniinyahu biyuhu waa inay ka sarreeyaan kadibna sidaas ayaad ula dhigaysaa muddo 6 saac kadibna biyaha ka wada daadi oo ka dhammee lana dhig weel daboolan daboolku waa inuu leeyahay duleelo si hawadu uga soo gasho markaa iniinyuhu way neefsanayaan waxayna ku soo dhalanayaan 24 saac ilaa 48 saac si u kala duwan yihiin haddii aad u baahato inaad biyaha la dhigto muddo ka badan 6 saac
waxaa laga maarmaan ah in 6 saacba inaad mar ka bedesho biyaha maalan galeedo kale way adag tahay waxay u baahan tahay waqti dheer biyaha la dhigo qodobka xiga oo lixaad waxa weeyaan saxan ku fidinta saxankii loogu talagalay ama tareeg loogu talagalay soo qaadanaysa inayaha ayaad ku fidinaysaa saxamada la isticmaalo normally oo cabirada ugu badan oo la isticmaalo 2.5 lagu dhuftay 8 cm saxankii waxaa lagu shubaa 2 kiilo oo miraha la beeraya miraha masigada ama galeeda ah fiiro gaar ah cabirka saxanka hadii uu ka weyn yahay ama ka yar yahay cabirka aan soo sheegnay isaga ayaad ka qiyaas qaadanaysaa waxay halka oo leeyaan saxamadii 8 ilaa 10 maalmood waxaa ka soo go'aya calaf cagaaran oo dhan 10 ilaa 14 kiilo marka 2 kiilo abuurtay 10 ilaa 14 kiilo ayaa ka soo go'aysa muddada uu ku soo go'aya waxay ku xiran tahay xadiga ilayska miruhu ay haystaan qodobka 7 waa waraabin waa inayna marna inayuhu qalalin waa inayna biyuhu fariisan saxanka gudihiisa waxaa haboon in saxanka loo sameeyo duleelo 2 ilaa 4 ah oo gees xiga ama dhinac waa in duleelada u jiraan inayaha masaafo dhan 5 cm si ayna xididadu u xirin duleelada waa in biyaha lagu buufiyaa 2 saacba hal mar muddo 3 daqiiqo taa macnaheedu waa maxay 2 saac oo markii la joogo mar baa la waraabinayo biyaha lagu buufinaya biyaha aad ku buufinaysid waa inay socdaan muddo 3 daqiiqo waa in maanka lagu hayaa mar walba xilliga la joogo iyo heerkul waxaa la adeegsan karaa hab automatic ah oo waqtiyeysan haddii aadan haysan waxaad ku waraabin kartaa gasac aad salka ka dulduleelisay sida sawirka kaaga muuqata goosashada nafaqada ku jirta inayaha waxay filan tahay korinta calafka muddo 8 maalmood ah wixii ka dambeeya koriimadu way istaagaysaa macnaha mir kasta ama inayn kasta waxaa ku jira nafaqadii ay ku noolaan lahayd nafaqadaas waxay ku filan tahay 8 maalmood maalinta 8aad wixii ka dambeeya wax ku siyaadaya oo ku darmanaya ma jiraan sidaa daraadeed waa inaad goosataa maalinta 8aad dhererka calafku cagaaran wuxuu gaari doonaa 20 ilaa 30 cm qiimaha cunto ahaaneed ee calafkan sidan ayuu noqon doonaa borotiinku waa 17 ilaa 20 boqolkiiba dheefshiidkiisu aad u sareeyaa oo 92 ilaa 93 boqolkiiba ayaa uu shiidaya neefka uu ka faa'iideysanayaa ku socoshada xoolaha ama jacaylka xooluhu ay jecel yihiin cunitaankiisu waa 100% ama boqolkiiba boqol xooluhu waxay cunayaan dhammaan qaybaha uu ka kooban yahay sida caleemaha xididada iyo haraaga mirihii soo dhashay marka uu diyaar noqdo xoolaha looma dhigo isagoo isku dhegan ee waa loo yaryareeyaa si ayna xooluhu waxba uga tegin sidee loo siinayaa xoolaha calafka cagaaran wuxuu jilciyaa caloosha xoolaha wuxuu u keeni karaa dibiro calool xanuun ama shuban si taa looga baaqsado waxaa haboon inaan xoolaha iyaga oo calooshoodu maran tahay la siin calafkan 2 marka xoolaha lagu bilaabayo calafkan cagaaran waxaa loogu bilaabaa si tartiib ah muddo kala wareeg ah oo dhan 10 ilaa 15 cisho calafka 4 calafka qalalan ee maalintii la siin jiray ayaa la dhimayaa waxaana lagu bedelayaa in la eg oo calafka cagaaran 4 waxaa loogu daraa calafka qalalan sida cawska balka iyo wixii la mid ah waxaana haboon in la isugu daro qodobka 5aad qadarka laga siinayo calafka cagaaran maalintii waa inayna ka badan kala bar calafka uu maalintii u baahan yahay halkaas ayuu ku egyahay taxanaheennii ku saabsanaa calafka cagaaran hydroponic fodder haddii ilaahay yiraahdo waxaan isku dayayaa inaan samayno asagoo practical ah oo step by step ah haddii ilaahay noo fududeeyo aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddii aad wax ka faa'iiday ha iloobin inaad tidhaahdid like haddaad nagu cusub tahayna ha iloobin inaad tidhaahdid subscribe